السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتي وسلامتهين ملك ستادونك جوجتان ولكن عبد الله إيوه walaashiin cabiir oo idin le isku soo noqod wanaagsan iyo fiideo cusub okay asxaabta intaan fiideogan gudaha u galin markuu ugu horeyso asxaabta nagu cusub waxaa leenahay welcome aad iyo aad ugu mahadsantiin maadaama idinku nagu soo biirteen anaga waxay noo tahay farxad dadka hornal joogna iigana sidoo kaleete sidoo kale asxaabta waxaa leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin maadaama aad labada dhinacba noola socotiin waa idinkaga mahad celinayna okay asxaabta markuu ugu horeyso karaali noqda si zamarka laga gaarayo waxyaabo badan hadda waxaa waaye banaanka fiideo ma lagu soo duubi karo kulligiina waa dareemi kartiin jawiga yani intaana xanuun nagu waay dulqaata ha wallahi jawiga xanuun waa asxaabta waad dareemi kartiin laakiinse anagoo inta fadhino waxyaabo faa'iido leh ha noqdo waxyaabo idinka khusli ha noqdo waa soo gudbinaynaa Sax. laakiin waa ka kicinaa inta halahaas baa naga dhii sheego okay asxaabta waxaan rabnaa caawo inaan idin la wadaagno weliba khaasatan aniga haddaan idin dhaho inaan idin la wadaagno cabiirna way ku jirtaa may markaas. anima ku jirin dhulkaasna anima soo marin laakiin xaajigaas soo marin aniga waaye marka asxaabta saa mawduuca iyo titleka iyo thumbnailka kusoo aragteen waxaa waaye waxaan rabaa caawo inaan idin la wadaago wax oo reality ah ma ahan waxa ay idin la wadaagayo wax social media aan kasoo arki wax qof iiga sheekay taasne waxaan rabaa inaan uga digo walaalaheena Soomaaliyeed dadka hadda ku haminayaan sax dadka hadda ku jiraan dhibaatadaas inuu Ilaahay ka soo saaro sax run ahaantii waxaan rabaa caawo inaan idin la wadaago wax kale ma ahan dhibaatada Libya aan kusoo arkay marka waxa waaye Libya ani maanta Libya soo maray xiliga ani soo maray iyo hadda waxa u dhaxeeyo different aad iyo aad u weyn u dhaxeeyo waa gaad laakiin visa ku imaad maxay u shaqaansateen maxaa waaye marka Talyaani imaad laab adi bisoo wacdi Libya meeqmara kusoo wacdi taleefka ay dhigaysiis makhsus ku qabays dhiis libi di joogto ku kasaaya ku dhaaya waa ku dhageysti Libya laba jeer aan soo wacay mugtay taleefanka wacdi fadlan waa dinsan yahay ama alla codkiska ay bedelaya Talyaanina ha Talyaani Hollandees iyo bila Hollandees English adeeg ku taalaa waay marka Talyaani imaadina hay seewa fiicanta xaalada ka war ku raadiyahay kula yurwa warkaas gaskii imaad baa ni gaadino Allah joogi iyo ciyaarta kaas waa isku yaqaanaa daadi marka Libya jo taleefan miliye qabeen Talyaani marka imaadi seewa waa ku raadiyahay taleefan Libya. ana liiday ana waxa la tuug dinas tuug inti tuug din oo tuug da oo tuug da mo Talyaani marka imaad taleefanka ma waa Libya ma Qabeen. Araba iyo qabaha sana iyo qabaha ama bidcad bi qabaaya tiriya hada na gal iyo qabaysiya marka asxaabta waxaan rabaa caabo inaan idin la share gareeyo dhibaatooyinka Libya aan ku soo arkay iyo waxyaabaha zaidka iiga yaabi wallahi ani waxyaabo badan oo iiga sheekeeya haween qaar marka iska fadhino wallahi iska wareystaa wallahi qalbiga ay xanuuno marka yani Libya qof walaal aan u duceeyahay sababtoo ah waxyaabaha aan mar walba aniga aan jeclahay inaan ugu sheekeeyo oo markaan arkana iidaan ugu sheekeenayo an nafsid ahaanteeda igu soo noqonayso sababtoo waxyaabo si fudud ku iloobi kartid iyo waxyaabo aadan iloobi karin ajira sababtoo maanta aniga meesha ani aan joogo iskama imaanin visa ma ku imaanin wax ma ku imaanin dacwad ma ku imaanin xaqiiqada markii la hadlo yani dhibka ani meeshaan aan soo maray markaa imaanayay wax i hor yaala waay Yurub gaar ahaan yani marka asxaabta waxyaabaha oo Libya inta joogi igu yaabka badnaa wuxuu ahaa ama dhibaatooyinka ha marka ugu horeys inaan arko 6 bilood oo bidda ma joogtay biyo 6 bil maxaa waay 6 bil horta sug baadi ay 2013 xamarka soo baxay 2010 dhamaadkeeda xamarka soo baxay 2014 euro waa imaadi maxaa la dhahaye adiga ku dhawaad sanad iyo xogaa soo tahriibay waxaa arkay asxaabta 6 bilood inaan kabal aan ahay oo cageyga uu marnay 6 bilood kabal aan ina ahay meel laba ku cibnaaday halas orda 5 bilood xabsiya soo galiyo ahaa inta oo adi waxyaabo badan jiraan faanti waxyaabo badan jiraan laakiin waxyaabaha oo kaadi naxtinta badneed oo adigoo wili is dhihin yani waxyaabaha oo mararka qaar markaan soo xasuusto oo aan yaabay faanti sax والله يعني مثلا تنكو حماد مركي فدسين او لسحبديناي يعني تاسوغي وحيابها او هاد يقول يابك بدنا وشيغا 6 بلود انا قبل انا هاي اصحابته 6 بل wax kaba mixirani tan kale يقول يابك بدneed waxay ahayd ina arki roti oo Libya waxa jirta meel geelka maartay waxay siyaano roti oo waxay siyaan oo qoraxda la soo dhigaa qoraxdaasi taadi muddo bil amal ama labo bil amal lagu heena kadib rooti uu adkaana waa darqi karaa beekaas dakhar maxaway birta caadiga amal uu noqonaa birta caadi kaasa la kala qarsanay
waxaa huwaal damac iska soo gali la filan huwaale walaalka hooyada iyo aabaha kula dhashtay haddii uu kula socdo ama walaasha ay kula socoto inaad ka qarsanaysid iyo waxaana la siin jiray hadda wallahi mararka qaar markaa arko biid tubadiis inay iska furan tahay qasab waxaa inaa xero بي يعني abaartii iyo libiya wax xasuusay fuustada waa aragtimo fuustada oo gaaska lagu keenayo ama Soomaali waa aragteen fuustooyinka gaaska lagu keenayo oo mararka qaar oo fuustooyinka waaweyn oo weyn oo gaaska lagu keenayo markuu ka dhamaado dad qaar way dhaqaan dad qaar waxay ka sameeyaan mo asoo la dhaqin waxay sameeyaan biyo ku sumaan biyaha iyo gaaska mis qabanayo mo asoo siis kaasa waxa lagu siinaa 1 litir lagu siinaa goorme way saacad lagu siin saacadeeda kaleete waa dhaqaaleysanaysaa haddana qorax jirto ha habeenkii igula yaabka badneed waxay ahayd Trablisa imaani oo waxyaabo badan jira asxaabta Trablisa imaani habeenkii wuxuu ahaa oo يعني إلهي كبرنا إنه حمر يقعليه لكن أنت كن قني واي ما لا كن قتي هرت العلا دي ذاك ور مجفا صومالي يلبس ومربي ميعليها تسكو عليها ما أنا ده وضوء مرسيها أسأوك مرسيها سحر ما كن قني سحر ما لو نقاه ديار واحد دجال صعود دياري واحد كاس على داما هذا بدأ سمرت له داما سحر بدي ونقيس وحوها يعني أنا جو ترابلس أنا لكاني حاجة وحوالي ليبيا إن يعني بابورت بوليسك بابورت تجاسيد ويسكو إكيين dhibka jira wuxuu yahay asxaabta xaqiiqada yani Soomaali hadaan nahay inteena badan waa dhib badan nahay yani nin Arabaan oo la keenay Libyaan kadib wuxuu dhahay walaalayaal Soomaali badan ay soo martiyo dhahay Soomaalidiina waa dhib badantiin ani waa ogaay yani dad idinka madax adag ma lahan Soomaali hadaatiin gurigaas idinka soo horjeedo waxa ku jiraan dad Eritrean kaas kan dad Afrikaan buuqooda iyo hadalkooda lama maqlo idinka tartiib aamusa wax Allah loo xaartin dalabaadkiina ninkaaniti meeshaan idin la joogo u dirsada صح okay way ninka adii nin mukhalas oo ahay waxa way lacagiisi wixiisa u daran Libyaan xun uu jiraa dadka Libyaan kale aad u xun yihiin Libyaan horta abaal ma lahan ihsaan ma lahan والله إسرائيل كامر خارج جنة السوقلاي مع الله wuxuu noqonaa yani qof leed ay ku dambeeso janana ma dhigi kariye qof leed ay ku dambeeso marka Libyaanka markii la qaatay صح markaasa Soomaalida markii nala keenay habeenkii bariis iyo aduuna waxaas meesha karsani waxa guri markaas dhismo ku socdiyo ahaa oo magaalada waxay ka baxsan Soomaali maxaa ku taqaanaa adeerkeyga dadka dira asaan u tagaa adeerkeyga dadku dira asaan u tagaa waa la baxaa baawur taxi ala soo arkaa waa la soo ordaa boolis marka dhalinyaro qaar baxeen oo hadan nagu soo noqdeen waa la soo arkay marka dhalinyaro badan soo aragtay Libyaan Libyaan hubka waa iska ogtiin qof walba waa iska huweysan yahay waxa dhalinyaro badan noo imaaday marka yani albaabkay soo gargaraaceen kii ugu horay albaabka ka furin ninka Libyaanka oo mukhallaska noo ahayn muxuu dhahay albaabka hadii la soo gargaraaco yaa la furin oo dhahay faantiin albaabkii la furin waa xasuustaa wiil Xasan la dhahay fur asay ka bilaabeen feer ma ya xabad maxaway feer ma ahan mala darbaaxin malahan dhufin no rasaas ku bilaabeen anagoo meesha turub ku dheeloon waxa caadi waxaa ka dhacday kaas Yurub intii imaana meesha ku soo xilaayay kaas waxaa ka dhacday nin walbo naftaada ka dhacday markaasana la qabtay kulligeena qaar dhaawac noqdeen qaar wax noqdeen tii kale igu yaabka badneed waxay ahayd markii habeenkaas nala soo wadi waxaa nala keenay xeebta nala keenay meel xeeb ah nala keenay baawuraan ugu soo aruuriyay meel xeeb ah nala keenay inta markaasaan xabsi 5 bilood aan galaa hooyadii ciidan iswaahina habeenkii nala soo dhacaynay galabtii amal hooyadii aan la hadlay hooy ma tahay badda jabigeeda okay waa la dhahay lacagtina ay soo dirtay okay beriyan ku soo diraa ay dhihisi habeenkii waa nala soo dhacay habeen 5 bilood kadib habartay galabtaas ay ugu dambeysay 5 bil kadib waa ismaqalnay asxaabta xanuun markii nala soo wadi oo nala soo wadi xayaati oo nala keeni maxaa la ahaayay meeshan xeebta nala keeni awiila waxaa nagu jiray dhaabac dad qaar waxa jira xabada markay ku dhacday isla markii dareemay hadan naxtina meesha taal waxa dareemay oo dareemay laakiin marka qaar misku aragtaa naftirka hadan daawanaysid markii xanuun meel dhaabac ku yaalo oo xanuunkiisna aad dareemay laakiin markii uu tuso xanuunkiis markaas aad dareemaysid wiilka xabadii intee kaga taala dhabarka meeshaan ay kaga taala ma dareemoy marka habeenna waa mugdi waay waana la soo wada xeebtaana la keenay xeebtii markii la keenay saasartina badni la siisaan no waabna la soo xirxirayaan ku dhahay badda sheegos maxaa waay ninkii doonta saar laay waa naga soo wadi gurigiis asigina ma oga bis meel xeeb ahaan oo keenay dhisan meeshaan ul aruuri meesh marka xabsi ma ahan markaas meeshaan naga la qaadi doona sax
subaxdii nol imaad idaacada imaadi يعني ورا حن الجدوة waxaana la duubo ahaa marka qaar dhalinyaro badan af carabiga xoogaa fahmayna mugtay waxa bal loo dadkan xalay badanka soo qabani كوي أو نيسو دحين أو نيسو حرتين من وحني وهلاني براديو ها dadkan badanka soo qabani yani dadka saana u badbaadiyona anaka badanka soo qabani okay markaas subaxdii markii la soo kacay xeebta saas aan wada fadhino wiil ag fadhi wuxuu arkaa wiilkaanu dhiig ka socdo oo shaatigiisu dhan dhiig waraa dhiiga ka socda allah saamirkii loo fiiriyay meel xali oo dhan xabad ku taali subaxdii si noqoni meeshiyo barartay waxa markaasay tiya wiilkaana dhaabac ala dhahayno wiilkaana dhaabac markaasa maxaa noo jawaab mataqaana wallahi markaasa waxaa noo jawaabi xaloo dhan markaan ku celcelihiin yaa dhaabacay marka habeenkii markii meesha la keenay wixii dhahay qofkii dhaabacay ha soo baxo markaasa wiil lugta ka jabtay xabad ugu dhacday oo lugtiisa lafta waa jabtay wiil kaloo asina gacanta kaga dhacday kulli waa la wada qaaday marka asiga cunigiina ma oga mugtay markaasii tiyaa waxaa la dhahay xaloo dhan markaan ku celcelinayn yaa dhaabacay maxaa u aamustay allah ku dhimaa la dhahay markaasaa nala soo waday xabsigaa nala keenay wiilkaaseeti ilaa hadda ma nool yahay ma dhinta ma ogi xabsiga 5 bilood aan ku jirnay xabsiga 5 bilood aan ku jirnay yani qolon asaa loo badiyay meesha intee turturtay baaba'day oo feeriis la arkay wallahi meeshu markii dambe kuwa imaadeen oo liibiyaan oo wili boqoryo wataan wax wataan soo baxaa la dhahay waa la wadi maalintaas ay ugu dambeysay wiilkaas mala dili maxay ku sameeyeen takhtar meegeeyeen wax meegeeyeen wallahi ma ogi yani alahan hadda waxa idinku sheegayaa يعني هذا way kasii darti ani mararka qaar marka hadda social media aan arko waxaan isleeyahay xilliga adig ka soo marteen meeshaasiti wallahi leeda waybe 2012 leeda way ku dambeysaabe yani hadda marka arkaysa bacal isku dhalaalna hadda bulkeeti xabadka laga saaraa xilligeen wuxuu ahaa lacagtaada soo dirso ama waa lagu dilaa haddana dhibaatada jirta waxay tahay qofkaana ku qabsanaa uu ku dilaa uu ku bahdilaa lacaga usoo dirsaysaa cidaada 2,000 soo soo diraysaa xilligeena waa yaa hadda 10,000 ay gaartay maqli markii uu soo dirtid isla markii markuu ku soo deeyo waxa hay kii waa soo deey qabsaa leeyahay oo kala isla markii ku dhagay gurigiisa u geysana soo dirso ku dhaadan marka wallahi aan liibi dad ugu muqwaan la wallahi yani mararka qaar waa waxyaabaha yani taqayil asoo dhalinyarada qaar oo liibida soo marayaan oo rafaadka soo marayaan oo Yurub markay imaadaan wala dhalin qaraa wallahi yani xanuun yani ado dhibka soo martay marka meeshan imaadidne waxa uu imaadi wax aad qabsanin oo maxaa lahay nolosha aad ka dhacdid waxa soo dhib wala dhalinyaro badan asxaabnay oo sidaas noqdeen waa arki iigan ilaaha soo hanuuniyo yani qofka nolosha xun asiga ma doorto qof waqtigii ciilaya jiro laakiinse anaga hadaa Soomaali nahay wax walba xun gacmihiina ku raadsana xaqiiqada marka laga hadlo saacada social media xumaanta aan u faafino kaleete wax wanaagna aan ka tagno oo xumaanta markii aan aragno oo aan bubuunin waa aragtena ma sidaas aan ahay laakiin qof wanaag diidaya malahan qof nolol fiican diidaya malahan dhalinyarta oo hadda dhibkaas ku jiraan waxa uu duceynaa inuu Ilaahay ka soo saaro anagane maxaa lahay meeshan inuu Ilaahay nagu amaansado inigane yani meesho joogay ku amaansado dadka hadda ku fikirayaan inay soo tahriibaan wallahi waxa dhii lahay hadaa Yurub baleen xilligan ay hadda la taagan yahay aad ku heleenin waxa waaye meeshaada iska joog wallahi anaga ba hadda waxa taaganahay ilaahay meeshan nagu badbaadi faanjana asxaabto marka aad ugu maasantiin intaas idin la sheer gareynay waxa waash xanuunta ku dhaay qalbi xanuun ay soo haysiisay waxyaabo badan jira yani waxyaabo badan jira laakiin inta yani 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo lagu soo koobi karo wax oo sanad aan soo arkay ku soo arkay 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo lagu soo koobi karo laakiin waxyaabo yani ugu darnaay wili waxyaabo ka si daran way jiraan aan soo arkay laakiin waxa waa intaas bay idinku filan yani qofkan waa ogtiina oo maleena biilaan manolaan karo biilaan xaq jirto jirdir ku sii dheer waxyaabo badan ku sii dheer oo waalidkii hadana yani adiga waxa ka sii xanuun badan qofka dhibka haysto iyo qofka walwalaay waalidka waa xanuunka dadsi adiga xanuunkii waaba ku jirtaa waaba lagu dilooyaa laakiin waalidkaaga lacagti ku raadinayo iyo waxa iyo cidiyo iska duruufeysan wallahi waxyaabo badan jira marka asxaabtu wallahi dhib waa la soo maray laakiin kuwi dhibkooda ku amal qaati ama maxaa lahay oo ilaahay ugu dhawaado ilaahana wada dhiga dhamaanteen insha Allah fiidiyogaas idin la wadaagayni fiidiyoga inta ka heshay like share comment asxaabtaada la wadaag dadka hadda rabaan inay soo tahriibaan la wadaag adigana waxa waaye hadaa Yurub joogtid waaba joogtaa hadaa oo maxaa lahay hadda aad ku fikiroosid
please and please horta ikhtiyaarka adaa iskale laakiinse tahriib wax fiican maaha marka insha Allah asxaabta aad iyo aad ugu tahriib oo wali gaar ahaan Liibi aan dad ma kuwanahay marka aad iyo aad ugu mahadsantiin asxaabta waxaa idin leenahay qof walba wuxuu jecel yahay ilaah ha u saalo anagana waxaan jecelnahay ilaah ha u saalo fiidiyoga xigo inta ku wada kulmeyno waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo